السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنا صاحبتي قيمة بدن ما أنت مقال عصب. مقال كنا ما أنت وحنا قادننا 10 كنا أفراد ويندوز 11. 10 كان كهري وحن كسو قادني سيدا أبسكا ديسكتوب كسارن سيدا لوجيني الله يري ده حال لوجا ديجو. ما أنت 10 كان وحن قادننا سيدا باك جراوند كمبيوتر كسبر كيس اللي بدلو يسيدو كله لوك سكريك shaashada banaanka ah computerka marka lock la geliyo shaashadiisa qaabka sawirka loogu bedelo iyo sidoo kale backgroundka gudahana sida loo bedelo okay isla socono laba qaab baan u bedeli karnaa tusaale inaan shaashada meel banaan ka imaano kadibna right click inaan dhahno kadibna aan ku dhufano halkan ay ku qoran tahay personalize halkan inaan ku dhufano halkan markaan ku dhufano waa kan wejigan hore noo keenay wejigan hore fiiri halkan waxaa ku qoran background color mujeda halkan background ku qoran qaybta hoose haddii aan u soconnana meeshaan fiiri iyadana waxaa ku qoran lock screen ku qoran anaga marka waxaan rabnaa tusaale backgroundka aan ku horumarno halkaan aan ku dhufanayna backgroundka halkan backgroundka markii aan ku dhufano marka halkan backgroundka markii aan ku dhufano meeshaan fiiri ay ku qoran tahay personalize your background meeshaan hadda waxaa noo saaran wax la yiraahdo slide show waxaa jiro slide show picture way isku dhex jiraan macnaa iyo waa maaragtay color halkaan aan furayna fiiri halkaan markaan furno haddii aan rabno sawir inaan soo saarano waxaan dooranaynaa picture solid color haddii aan rabno backgroundka in aan midab ama color caadi ah inaan siidano halkaan waxaan dooranaynaa solid color tusaale hadda solid color oo kale aan ku dhufano fiiri solid color markaan ku dhufano meeshaan waxaa noo soo baxay colorro midabaa noo soo baxay midabkan oo kale iskaga dhufanaynaa oo maaragtay kan ah fiiri haddii aan iska xirno shaashadeena fiiri say noqotay background ma jida wada color ay noqotay okay aan kusoo laabano marka meeshaan solid colorka aan bedelno aan ku bedelno slide show haddii aan ku bedelno pictureski hore noogu saarnaa ama hadda noo saarnaa oo kale ay noo soo fulay oo wato windowska wato windows 11 ka wato okay mar kale haddii halkan aan furo aan dhaho picture aan doorto waa maarta wuxuu soo saaraa picturedii ugu dambeeyay aan computerka ku isticmaalay tusaale هذا minimizer iska dhaho fiiri kida picture kan ayaa ii soo muuqday okay waxaan rabaa marka picture gudaha computerka ku dhex jiro inaan saartaa raba su'aal hadda kuwan mujida shantan xabe waa kuwii ugu dambeeyay aan ku isticmaalay waa haddii aan rabo kabaran in aan maaragta sawir kale cusub inaan soo saarto waxaan ku dhufanayaa halkan ay nooga qoran tahay browse photos halkan aan ku dhufanaa halkan markii aan ku dhufto wuxuu igeynaa gudaha computerka kadibna waxaan raadinaa meesha computerkaygu saaraya tusaale sanduuqan oo kale boxkan oo kale iska soo doorana kadibna juice picture aan leeyahay halkan okay waxaa ii soo galaya marka sanduuqana ii soo galaya waa kan hadda picturekana ii soo galay hadhow adi marka meel alaala meesha computer meel ala waa kan boxka mujida meel alaala meesha markaas uu ku yaalo pictureka ama sawirka uu ku yaalo ayaa tagaysa kadibna halka ayaa kasoo dooranaysa okay aan ku soo celiyo mid kale ay ku qoran tahay ayasana window spotlight ay ku qoran tahay spotlight ay ku qoran tahayna computeradu ku imaada waa pictureka waay ama maaragta frameka waay waxaa wato windowska wato fiiri waa kan isagana nidaamkan ayuu egyahay okay aan ku soo ceshto marka keygii aan ku soo ceshto tusaale kor waa maaragtay aan yiraahdo halkan dib iyo celi okay halkan window spotlight halkan intaan furo ani waxaa ii saarnaa slide show ii saarnaa okay waa kan slash shot ii saarnaana kan ayuu ahaa okay background waa garanay sida loo bedelo lock screen ka waran isagana waxba kuma kala duwana mar kale waxaan leenahay right click kadibna personalize halkan aan ku dhufanaynaa halkan markaan ku dhufano wejigan hore noo keena kadibna hoos u deganaynaa lock screen halkan aan ku dhufanaynaa halkan markaan ku dhufano waa kan lock screen isagana waxaan noo saaran fiiri pictureski ama sawiradii ugu dambeeyay aan lock screen kan ku soo isticmaalnay okay isagana sidoo kale halkana laga bedbedela meeshan picture ay ku qoran tahay windows spotlight uu leeyahay windows spotlight kiisa noocaas waaye hadda haddii looga gelina haddii aan dhaho kamerada iga kala go'ayso okay sidoo kale halkan intaan ka dhex arki karnaa meesha mujida saacad ay ku qoran tahay halkan ayaan ka dhex arki karnaa okay slide show haddii aan dhahna isagana waa kan picturekaas ay noo saaran haddii halkan aan dhahno pictures caadi ahna waa kan picturadan ayaa ku bedeli karaa haddii picture ama sawir gudaha ku jira aan u baahanayn waxaan ku dhufanaa halkan ay ku qoran tahay browse photos kadibna wuxuu igeenayaa gudaha computerka waxaan dhex galayaa marka waa maaragtay waxaan dhex raadinayaa computerka meel alaala meesha markaas picturekayga ama sawirkayga uu ka yaalo ayaan raadinayaa waa kan halkan ayaan ka dhex arkayaa mujida
okay nidaamkaas ayaa loo bedeli karaa wax loo yaqaano ama wax la yiraahdo lock screen kana qaabkaas ayaa loo bedeli karaa. okay casharkeena afraad halka ayuu nooga yahay sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like ta nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka.